Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Soo dhowaada dhammaantiin. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir. Maanta waxaan ka hadlaynaa sida Hitler uu u dilay 6 milyan oo Yuhuud ah. Si loo fahmo taariikhdan, waa inaan marka hore barannaa ninka ay wax walba ka bilowdeen oo ah Hitler. Hitler waxa uu ahaa nin u dhashay dalka Austria, markii dambena ku biiray ciidamada dalka Jarmalka xilligii dagaalkii koowaad ee adduunka 1914 ilaa 1918. Dagaalkaas dalka Jarmalka guuldarro weyn ayaa ka soo gaartay, dalkiisana waxa uu galay gaajo, shaqo la'aan iyo lacag la'aan. Hitler waxa uu ahaa nin aad u xanaaqsan laakiin lahaa hami weyn. Wuxuu aasaasay xisbiga siyaasiga ah ee loo yaqaano Nazi, wuxuuna dadka Jarmalka ku dhibaataysnaa u sheegay hal shay oo kaliya ah. Wuxuu rabay inuu Yuhuudda iyo dadka Jarmalka uu isku diro, wuxuuna go'aansaday inuu u sheego hal shay oo kaliya. Shaygaasna wuxuu ahaa: idinka ma lihidiin dembiga burburka, shaqo la'aanta, lacag la'aanta iyo baahida. Waxaa dhabarka idinka toogtay oo lacagtiinii qaatay waa Yuhuudda. Taas waa inaad ogaataan. Dadkii Jarmalka oo aad u baahnaa, dhibaato badan ay haystay, waxay rumaysteen hadalkiisa, waxayna doorteen inuu noqdo hogaamiyaha dalka Jarmalka sanadkii 1933. Haddaba su'aasha qof walba isweydiinaya maxay ahayd sababta Hitler uu u nacay Yuhuudda? Hitler ma uusan haysan sabab aqal-gal ah, balse maskaxdiisa waxaa ka buuxay 4 fikradood oo waaweyn. Hitler wuxuu aaminsanaa in dadka Jarmalka ah ee dhaladka ah ee loo yaqaan Aryan ay yihiin dadka ugu horreeya uguna tayada sarreeya aadanaha, halka Yuhuudda uu u arkayay dad hooseeya oo dhiigga iyo hiddaha Jarmalka qarribaya. Wuxuu ku sifeeyay Yuhuudda inay yihiin qaa'imiin dhabarka ka toogtay ciidankii Jarmalka xilligii dagaalkii koowaad ee adduunka. Maadaama Yuhuuddii Jarmalka deganeed ay u badnaayeen dad wax bartay oo hayay meelo muhiim ah sida bangiyada, ganacsiga iyo dhakhtarnimada, Hitler wuxuu dadka ka dhaadhiciyay in Yuhuudda ay dhiigga ka nuugayso dadka Jarmalka, isla markaana aqliyadii, dhaqaalihii iyo hantidii ay wax walba la wareegeen. Sidaas oo ay tahay, dadkii Jarmalka ayaa rumaystay, waxayna go'aansadeen in Yuhuudda meel kasta oo ay ku arkaan ay ku beegsadaan, ayna rumaystaan hadalka hogaamiyaha ay doorteen ee Hitler sanadkii 1933. Laakiin su'aasha ugu weyn waxay tahay, sidee ayuu ku bilaabatay in ninkan Hitler ah uu madaxa ka jaro 6 milyan oo Yuhuud ah? Markii uu Hitler dalka wada qabsaday, wuxuu bilaabay inuu dhisto ciidan aad u xoog badan, hub casri ah, wuxuuna rabay inuu qabsado guud ahaanba qaaradda Yurub si uu u ballaariyo dhulka Jarmalka. Ninkan wuxuu ahaa nin hamigiisa aan u caadi ahaynba. Wuxuu rabay qaaradoo dhanba inuu Jarmal u bedelo, wuxuuna ahaa nin hamigiisa iyo sidoo kale kartidiisa aad loola yaabay. 1 bishii Sebteembar sanadkii 1939, ciidamada Hitler waxay si kedis ah u weerareen dalka Poland. Waa inaad ogaataa, Poland intiisa weerarinba Poland, dalalka Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa heshiis difaac la lahaa, waxaana Hitler ay u sheegeen inuu dib uga gurto oo uu dagaalka joojiyo. Markii uu diiday, labada dalba waxay ku dhawaaqeen dagaal ka dhan ah dalka Jarmalka. Halkaasna waxaa si rasmi ah uga bilowday dagaalkii labaad ee adduunka. Markii uu Jarmalka uu qabsaday inta badan wadamada Yurub, nidaamka Hitler waxa uu gacanta ku dhigay malaayiin Yuhuud ah, wuxuuna u adeegsaday 4 hab oo naxariis darro ah oo weligeed dad bil'aadan ah aan lagu samayn, oo waxa ilaa hadda laga sheekeeyo oo Yuhuudduna ay ka sheekayso. Bilowga Yuhuudda waxaa markii koowaadba qodobka koowaad uu isticmaalay wuxuu ahaa meelaha go'doonka ah. Bilowga Yuhuudda waxaa laga saaray guryahooda, waxaana la geeyay meel wareegsan oo darbi weyn lagu wareejiyay. Kadibna waxaa laga jaray cuntada, biyaha iyo daawooyinka, taas oo keentay in boqolaal kun oo carruur iyo waayeel ah, sidoo kale haween uur leh ay u dhintaan gaajo. Qodobka labaad ee Hitler Yuhuudda uu isticmaalay waxay ahayd toogashada tooska ah. Markii ciidamada Hitler ay galeen dalka Ruushka, waxaa ka dambeeyay oo la socday kooxo loo yaqaan Easterbeam. Hawshoodana waxay ahayd inay tuulo kasta galaan, soo ururiyaan Yuhuudda, kuna qasbaan inay gacantooda ku qotaan godad waaweyn
kadibna dhammaantood ay madaxa kaga dhuftaan rasaas si ay godadkaas iyagoo nool ugu dhacaan, halkaasna lagu aaso. Qodobka saddexaad oo uu isticmaalay Yuhuuddu waxay ahayd qolalka sunta ah iyo xeryaha dabagoynta. Halkan wuxuu ahaa kii ugu dambeeyay uguna xumaa. Jarmalku waxa uu dhisay xeryo waaweyn oo u dhow jidka tareenka sida xerada caanka ah ee la yiraahdo Ostbahn. Yuhuudda laga soo qabtay Yurub oo dhan ayaa tareenada xoolaha loogu talagalay lagu soo daabuli jiray. Markii ay xeradan soo gaaraan, dadka waayeelka ah, naafada, haweenka iyo carruurta waxaa si toos ah loogu kaxayn jiray qolal waaweyn oo loo ekaysiiyey meel lagu qubaysto. Markii lagu xiro oo albaabada birta lagu quflo, waxaa saqafka sare laga soo daadin jiray kiimiko sun ah oo hawada ka imaanaysay, taas oo loo yaqaano Zyklon B. Dadkana waxay ku dhex dhiman jireen 15 daqiiqo gudahood. Kadibna meydadkooda waxaa laga samayn jiray in halkaa laga soo saaro, kadibna foornooyinka waaweyn lagu gubo si aan raad iyo xog loogu helin. Qodobka afraad waxa uu ahaa shaqada qasabka ah in lagu dilo. Dhalinyarada xoogga leh looma dili jirin si toos ah, balse waxaa lagu qasbi jiray inay u shaqeeyaan 18 saacadood maalintii, iyagoo qodaya dhagaxaan, dhisaya jidadka waaweyn, iyadoo aan ognahay dalka Jarmalka qabow daran iyo baraf inuu ka dhacayo. Cuntadana waa koob shaah ah oo kulul oo sokor la'aan ah iyo xabad rooti ah. Sanad gudahood iyagoo harag iyo lafa ah ayay u dhiman jireen daal iyo nafaqo darro. Sida xogaha kala duwan ay sheegayaan, intuu dagaalku socday 1939 ilaa 1945, Hitler waxa uu madaxa ka jaray 6 milyan oo Yuhuud ah. Hadda waa 6 milyan. Tani waxay ahayd 3/2 meel guud ahaanba Yuhuudda ku nooleed qaaradda Yurub oo dhan. Waxa ninkan mucjisadiisa uu Yuhuudda ku beegsaday reer Yurub oo dhan ayaa la yaabanaa sababta uu go'aankan u qaatay. Dad badan waxay ku tilmaameen ninkan Yuhuudda inuu aad u necbaa, isagoo sii wada oo rababa inuu Yuhuud dhanba adduunka ka ciribtiro oo aan la maqlinba wax Yuhuud la dhaho. Dagaalkii waxa uu dhammaaday bishii Maajo sanadkii 1945 markii ciidamadii isbahaysiga Mareykanka, Ingiriiska, Ruushka ay jebiyeen Jarmalka oo ay dhex galeen magaalada Berlin. Hitlerna markuu arkay in laga guuleystay, wuxuu isku dhex dilay god oo uu ku dhuuman jiray, kadibna ciidamadiisa ayaaba gubay naxashkiisa si aan meydkiisa loo helin. Xeryihii dabargoynta ayaa la furay, waxaana laga soo badbaadiyey dadkii oo hargo, lafo, qaarkoodna ay nafta ka baxayso. Sheekadan waxaa ka aqriyay buug laga qoray taariikhda Hitler iyo Yuhuudda oo qoray nin la yiraahdo Michael Germani. Yuhuudda reer Yurub maantay aad iyo aad ayay u aaminsan yihiin, laakiin dalka Jarmalka iyo meelo badan Yuhuudda lagama jeclaa. Sababtoo ah Yuhuuddu waxay samayn jireen inay dal kasta oo ay tagaan waxay la wareegaan ilaha dhaqaalaha, waxay la wareegaan bangiyada, maadaama ay yihiin dad adduunka laga neceb yahay. Waxay isla markiiba ku dadaalaan inay waxbarashada meel sare ka gaaraan, gaar ahaan tiknoolajiyadda. Waana sababta reer Yurub in badan oo ka mid ah aysan Yuhuudda u soo dhaweysan. Maantana qodobkeennii intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa.